مسوعد سكري ميا مسوعد سيقاني في تأدرو حتى ميجي قبره أنا عسوموي أنا أدروي إمامك سيد الله سوق بسد ما يقاني يا كاري يا كينا إمام كني مراها قربونا ميرهان ورسوق مايا أنا أدروي وح أدر لها تابت ماشي أو عقار كتابة دي هذيرو ماشي عقار كتاب أنكو دعينه مليون ويل بعد عدان صار مقرد والبلايا ويل بعد عدها وصار راتيه هذا يوم نقدر نيو بعد عدني هذا وان كديقرينا بعد عدياش لكن هذا هو شينا دميسرينا وانا ما تاو حاضر ايه كي او إمامك إن في تأدري مسوق بسنويو مسوق بسكريا وملاها ما يقانو إن في تدنا ما كجواب كريا وملاها وانا ما تاي هدي أسيق لوايو قبصو ولا هو جد هدي أسيق أو سوق بسوايو دم ملاهن يا لقو بدل كراتلو وأدرويا مقابنويو ما يوقفك لقو بدل عني لأن غكرة إمام قول لك كيسان غكرة واحد كلام أدير حاد ورسوق هذا المسونق هي لو جوجي أنا ولا أدير حاد ورفعت شورتان مر وصونق ها إمامك نوايمت إمامك هذا المود قاعد أضيع وهذا هذا المود حاد ولا دويمت أيوة وانا ما أنا دقة هاي ودي صار كان السوق بين أوضي أركم جوابه يا إدعي إمامك وسوق بسيكوسونق إمامك سونق سيد هذا صوص ماي إمامه ماشي هذا تابو تبغى نانك كلنا تابو هذا هو فعلا وسوق بسته هنا لا يابين هرتاب قال مركا أنها مقالة واقع صوت هنا نقوقات أبقالوي ساسدين تاس حالك وقبائل تاس أدين كفتم يعني كانه أدين ما كفتم ليش على المال هو كفتم ما أبقى لك ربع وحصل هذا ما يا شنغاني يا بدك انت يرا كل جرا حرب يا رئيسنا يا مال يا شنغاني يا بدك انت حق اقل ده لو ما هذا العو اليوم بنت حشيقيا وصلا إمام ماشي هذا سوق بسيس هداتي مركان كسوق بترى waxaan ku dhahay soo galba masaqadka ka xun ma jago oo langaab iska ciilan oo galgala oo aniga qabiilkayga ka saaray baa tahay meel kale aan geystay langaab kuma jawaabayay waxa doonto iska sheeg dameerka aad weyn baa ku yaala ma jeerteen dameer yahay aan ku shaqeystaa maalin walba wallahi ra'iisul wasaaraha ma jago ma jago hoosu dameerka ma qabri u qadno abaacune hal dal qabri si ma kuwan waa ku dangaarnay de gondobkan waa siibnay iska dhaaf waxay doonaan ha iska sheegaan shaqo uun bay noo qabanayeen gondob bay noo ahaayeen waa ku shaqaysanay mariixaankii marka aan ku jabinay ayagana waa tuurnay waa siibnay ogaadeen iska dhaantay hayaan hadda war imaamkii waxbaa ka xunaa maleeha qadka baaltoog ma ka dhigteen adeer cadowlo adiga sugniyo aan dhiiqada ku galgashay adiga iga sugniyo hadda wax iska dhacaysa luuqa galniyo meelaha kala gala wax iska dhici adeer babliga la iska dhiciya ayaan ku wax luuq ma jiro adeer cadowlo sirtaada cid ogaanin qofka yaxaas kamarka waxyada ay dadka mu sheega weliga hadda u joogo banaankiis galgala hadda dameer way abgal soo qoro waaye hada galgala xan leedahay adeer cadowlo mud gal ninkan ha iska difaaca ninka galgalada niyo ma jago oo dameerka alaabta ku rakiban hadaba adigna agiliha subhanallah ya cadiima daarood xun tahay mar dhow la qaramiya imaamku waa imaaday generaal السلام عليكم وعليكم السلام تليفون وريرا مركا سوق بسمعه تليفون يسوق له رال هذا ها صدو وعنده هاي قرابه وين سلامه سودنتين وحي هوس جوجا وحي كور سارن انت بقولك تما افرتان كل سلام والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته حال الدين عافمتك عليكم السلام ورحمه الله وبركاته امام سودو ابتيو سودو بقرتويو شير قراي وريال شير قراي هاي وعنده هاي وعلى يدي سيدا waxaa amal walaal waxa la waa amanka mugoor dad walaalaha xoogay wax iska dhaceen dadkuna inay gobol iska mashquulsiina laga yaabaa alxamdulillah shukri waa hadda waa la nicmaysan yahay waana soo dhamayna hoos ahaan haddana iyadoo guud ahaan inaan wada dhamayno oo abgaal ku kala reebanayn oo mudulood ku kala reebanayn inay wada maqlaan kuna caafimaadaan wanaagga iyo walaaltinimadan lagu wada daydo lagu midoobo
walaasheen milyuun ee qolkan noogu furtay way ku mahadsan tahay jasaakallah khayr marka soo dhowaada walaalkayna waa saaran yahay wiilka xoogay laga tabtay malaaqi wuu joogayaa soo dhowaada hee waa dhowna adeerow wixii dhacay horta waxaa la yidhi gacan hadday jabto gunteeday dhex taallaa ahey annaga kala maadamayno dad dhashaan nahay ma faham dad isku yimid lama nihin abgaalna dhaqan iyo diin iyo xeer uu leeyahay ma fahamti igaarta iyo meelahaas iyo tagaaray ay xoogaa way soo wajaanay jireen waxna way isdhihi jireen laakiin calool kuqaad ma qabno qabiilka keliyan calool kuqaad qabina abgaal waaya ma garat صح abgaal la marjaco leeyahay fas'alu ahlu dhikri in kuntum la ta'lamuna layir quraanka ninka yaqaana weydiiya odayaasha caaqilada ah ee duubabka ahna weydiiya marjaca abgaal iyo taariikhda abgaal la baxna waa fiican tahay wax dhiba ma jiraan ilaahay mahada ka gaarto marka dhitigee nimaan dhalan dhaxdow ka daloolaha layir dhitig iyo nimaan dhalan dhaxdow ka daloolaha annaga dad dhashaan nahay ahlu diina sharaf leh karaamo leh haybad leh ilaahayna awood siiyey ma garat ilaahayna adoo daciifa ha dhiman loo ku yiri adoo xayya oo nool oo karaamo la dhimo dayuus iyo dayuusadna ha noqon wiil ilaahay quraankiisu ku yiri nabi maxamed sheegay calayhi salaatu wasalaam marka annaga igaartaana dhalle oo isgaargaaray wax dhiba ma laha wallay maqlaa inta kalena hal gaarsiiyo waxaana gacmo geelay hoosaa loo dhaqaa ku soco hee gaarkayga saa u dhacay horta laba gabdhood oo walaalahayna iyo wiilka meesha saaran waayo waxa wax gaareen marka waxaan codsaynaa haddii gabdhihii joogaan inay xeeday inay soo qabsaayaan iyo inay halkoora ay ka qaadayaan wixii wanaaga in la weydiiyo ay soo qoraan hadday soo koraayaan in dad u dego oon dad u dejinno kow laakiin waxaan rabaa inuu walaalkayn hadaliyo oo kow beri horta isugu hadlo kabacdina markaas insha allah sayna la taan yeelaynaa marka laakiin inuu isugu hadlaan rabaa صح usoo dhawow aadad mahadsantiin dhammaan horta waa laynu maqlaa sooma okay aadad mahadsantiin dhammaantiin imaamka malaaqa walaashay marna iduna suldaamadday xaq u leedahay suldaamadayna dabcan horta farxad bay tahay inuu reerkayga halkan caawada joogo saddexdii aan u dhalanay waxaa sidoo kaleeto aan aad ugu faraxsan inay gabdhaha walaalahay iga sheega karaan anna aan raalli geli karon walaalahay waxaabaa iga kin gaaray khalad bay ahaayeen igama mudnayna raalli naqda aan dhihi karo tolkaygana aan qoortaan u dhiiba karo wax walbo khalada way dhaceen ee tolkaygu dee iga taliya amba idirsha amba ideysta aan tolkaygana aan dhihi karo sharaf bay idna taana ay ii tahay walaalahay aad bay ugu mahadsan yihiin inay wada aragtay anoo ka khaldamay haddana intii saamaxan ay dhahan qaraab waxaan dhaala waxaad noola timaadiin ayaan diyaar u nahay ilma adeertay rajiina walaashay qariyo marna imaamadeyda walaashay khriish gabadhayla dhalatay iga yar idna kuyo kow jeer raali naqda macala shaydaan ku taale khalad wuu dhacaa soo u dhacaa lama dhaho sidee looga dhaqma khaladhaa sideena hore looga socdaa igama mudnaynina xaqiiqatan inaan public tago aan dhaho tolka maahidiin horta abgaal maahidiin abgaalna maahidiin abubakar warsan giligana waad sheegatiin maahidiin dee dabcan maadna mudnaynina carabiilkaana iskugu dhawa mararka qaarkood way isgaaraan dee bidha caleega haaye haddaan khalad yar oo iga dhacay adinkuna inaad isaamaxdiin baan xaq u leeyahay xaqna aan idinkugu leeyahay bini aadam baan dhaha sidayna dhanba khaladaan naga dhacayo muxuu khaladka inay kaga dhacay ina la dhahana waa khalad inaan markaa waxaan diyaar u nahay in laka dhegeysto inaan qof walaalaheed ku khaldantay haddana diyaar u inaan inay raalli geliso inay qofku ay tahay inay qof kale ay tahay la kala fiiriyo marka calaa ayati xaal wixii dhaca way dhaceen rajina walaashay raalli noqo walaashay kriish raalli noqo labadiinuba dee laba gabdhood oo gobahooda dhashay baa tihiin dee xalana waa layska kaftamaya kaftanka baa halkaa garay kubad kaloo la wareejinaya baa adinka madaxiina ku qaraxday ilma adeerayaalo kunyo kow jeer raalli ahaada sidoo kale imaamka malaaqa habarirtay shuushu cabdi
walaashay suusan qaadi habeertay beelakiin iyo walaashay Maryam Rooblo hadda halkaan joogto adinkuna aad baad u mahadsantiin saad wanaaga walaalnimada wada dhalashada inta baad uga shaqeydeen de marnaba adinkana waan idin xusi doonaa de saad igu damqateen aad baad u mahadsantiin haye imaam waa ku soo wareejiyay hadalka iyo malaq imaam lugu hor hadday lagu daba dhaafto waa jabtaa la yidhi abtiyow meela adiga joogtid waxa waaye aniga boqortooyaad tahay imaamkiyaad tahay annagana Faadumo Diin Meel Xasan Yaaqoobaan dhashay oo duubka xaggaaga u iiga yimid duuba adiga saarataan haya aniga ma garat anoo malaaqiye ku soco ma gali daba la joogaa ama ku siiyaa waa ku siiyaa laakiin wax yaro waxaa la yidhi nin hadda yimid iyo nin urda ka kacbo hadal ugu daraane macnaha waxaan raacaa walaalkay hadalkoo yidhi horta gabdhahaas walaalahayna waa maqlaysiin hoosaa joogtiin walaalkiin maanta xoolo la iska qaada ma yihiin abgaal hadday dad iska dilaan ambay dad iska dilaan ambay xoolo iska dhacaan gogola la dhigi jiray maadaama qurbo la joogo qofan meel joogto gurigii gogosha lagu dhigi lahay waxaan ka dhiganay gurigii Maryam Rooble horta taas ku daawooba raalinimada walaalkiin idin soo qaatana oo idin soo gartana qaata caloosha isku fura waxaan rabnaa khaasatan ummadda Soomaaliyeed horta Ilaahay bigoora burcada la isku marsho khaasatan beesha Mudulood khaasatan beesha Abgaal waxa waaye aniga gabartayna iyo wiilkayna sharafay laha jiraan waxyaalaha gobolka waa ka xishoo jirnay waxaan idinkugu dardaarmaa in la is ixtiraamo qadafta la iska ilaalisho qoftay wax ka dhaceen way ka dhaceen dadku waa wada walaal TikTok lama joogo arriga la isla joogaa shaaha la isla cabaa bunka la isla dugtaa cuntada la isla cunaa meydka la isla duugaa intaas waa in la ogaado warsaa gabari wiil ku leedihiin inay is ixtiraamtiin Soomaalinimo qaraabanimo ahalnimo muslimnimo intaasaa wacan adduunkan waa laga tagaa lama joogaayo quruxda iyo xoogga lama hayaayo marka anigu intaasaan dhihi lahay inta qaraabo meeshan ku jirta na waxa waaye caawo wixii dhacay shalay oo dhalinyaradaas ka dhex dhacay in laga daawoobo oo maanta kadib wixii xun hoofaaqda Allah u rido qoftii wax ka raadisana iibaanka Allah gelsho gacal gacanta iska haysta inay yihiin waa in la arko lana ogaado intaasaan idin leeyahay anaka dad odayaalaan nahay dad waxgaradaan nahay dadku walaalaha dhalinyarada inay isjeclaadaan inay isla qoslaan inay isgargaaraan inay isku gurmadaan wixii xun iska ceshadaan intaasaa naanfacda gacal is haysto oo is afalgaadeeyahayo kuma faraxsanin kumana mana qurux badno marka intaasaa idin leeyahay qaraabo kuna soo dhawo malaq adeer horta war macaantiisa adaa sheegay samadana waa furantaa roobaa da'ayo ilaahayna quluubtayda waa u jeediyaa ilaahay qalbiyada dadka u daalacdaa ilaahay wuxuu leeyahay dadaan laga dulmin igaartaan u sheegaa waa gabdhaha iyo waayeelka iyo duubabka iyo ilmaha haddana waa idin sheegaa waan idinku soo celaa iska ilaalsha ilaahay dadka aan laga taaban ee quraankiisa uu ku sheegay aayad quraana ayaa ilaahay ku ammaanay gabdhaha waa gabdhaha nimanow jooga nimankan gabdhaha la boolitimaysaayo oo cayhaayo oo la fadhaamaayo ha ka feejignaadaanaan leeyahay quraankii rabbiga ayaa lagu ammaanay suuratulbaqara suuratulmaryam suuratunisaa hal aayadoos nin looga hadlayo ma jirta ninka amraa la siiyaa ha gelin xuduudayda ha soo gelin war ka jooga ilaahay dhooya ilaahay in soo dhaafay inay gabdhihii u gudbeen hadda gabdhii cidda ahay oon annaga dad u ahayn oon dad ku ahayn oon gargar iyo garab iyo gaashaan ma fahamtay iyo wax walba aanu hayna waa gabdhaha sharafta lagu sheegayo waa caarka waa gabdhaha lama taabto lagama oysiiyo ma fahamtay gabar gurigay ku oyso waa bacay waa guri hoogay iyo gurigu inuu ku ooyo oo lagu dulmiyo is ilaaliya nimankan carabka dheerdheer leh oo iswaalwaalaayo oo gabdhaha la bootimaysaayo gabdhaha ha laga leexdo ilmaha ha laga leexdo noo ilaalsha dadkiina bedeli lahay waaye dadkii wax noo dhali lahay waa iyaga dadkan xididkan ahayna ha la ixtiraamo oo gabdhaha naga qabo ilaaliya
walaashaan ninka qaba walaashaha kuu kale sharafuu kaa mudan yahay darajuu kaa mudan yahay gabartaas sharafteeda gurigeeda haddaad tegtid karaamaad ilaahay ku siyaad haysataa ilaasho haddana waydin leeyahay aniga nimankan hadday bannaanka u soo baxaa inay legdamayaan ay xabado isku dhufaayaan xabad uma arko asalba waa dhima rabeen kuwaas laakiin gabdhaha yaan layga lafa dhaamin yaana la caayin ilmaha yaan cayda la maqashaynin ha la gaagaabsado jooga si xun ha u dhimanin adoo alwasaadayaad arkee ilaahayna ha laga cabsoodo dadkaana yaan la taabanin waxaan dad ku nahay waa ku soo celaa waa gabdhaha iyo ilmaha ubaxa ah ubax dad biyaha ka badisa waa dhimaa gabarna abbaayo ina adeertee macaanay see tahay dheh muggaan anaga shukaansaynana quruxay sharafayaan dhahnaa muggaan wax ka dhalana waa cayhaynaa miya ama nin kale ayan soo baxo gabar nin qabow cayha yaa u baneeyey kafuurkaa laga tumaa waana la casaaraa waana la iska dhacaa cilla tuugaya ma jirto marka waxaa idiin sheegaa ilaahay qaatumada hana waafajiyo abshirta allahna waafajiyo qof walbana rasaqa iyo caafimaadka iyo caqliga rabta iyo darajada allah u siyaadiyo ay hayso qof walbana karaamay leedahay oo nool wiilka rajiina aniga waa aqaanaa waa gabar cidda waa gabar boqortooyo ka soo jeedo adoogeedaan la hadlay daraad way bartay way isnaqaanaa sacuudigaan wada joognay ma fahamtay tan rajiino inaysan afkeeda ku soo gaarinaa ballankaa qaado horta suldaan rakama dhamaata leeyahay waa ka soo dhawaataa horta rajiino waxa waaye anigu inta isku ka sheegay nin abgaalo warta abgaalo oo Bakar Gaawana oo Xasan Yaaqoob oo Diimaala Xasana aan ahay iyadana intaas ila tirsataa oo yar imaana taa macna waxba la iska weydiima waa gabar in adeertay marka waxaan way dhacaan anigu waxaan eri gabar yar imaana inay dad wax tiraa lama rabay way safraane waxa waaye maanta meesha ninka ragga oo yar imaan laga waayo gabarta laga ixtiraamaa marka wixii ku dhaca way ku dhaceen walaalkeeray ka gaareen waxaas waxba maahan miimadana oo dadku waa madax iyo majayo maxoge madaxu siin bari waxa waaye korow jira dhiiqada waa laga ilaalishaa laakiin dadka hore waxaas ilaali jiray hadda dadka isku mid ah la naqdo ma fahamta qurbana waa la yimid darajada iyo dadnimadii way yaraato ma fahamta marka laakiin gabdhaha waana dhaleen waa hooyo waa habaryar waa eedo waa birmagaydo gabar in lala hadlo haddii candhuuf kugu tuftayna iska tirto oo ka socota gabar dhamo Soomaaliyeed sharaf leh karaamo leh laakiin dhalinyaradu waxa la intay booti ka boodaan tala ka boodaan intaasaan ku safraynaa haddana waxa waaye ilaahay macnaha tawfiiqda maanta isku keena gabartan walaashayna oo milyuunana ilaahay waxa waaye culayska haysta iyo dhibaatada haysataba ilaahay ka qaado iyadana gogoleen dhigta maanta gogosho abgaal Soomaaliyeed dhigtay iyadana waxaan leenahay meesha ka oomanta Allah ka waraabsho culayska haystana Allah ka qaado dadkeena Allah jeclaysiiyo carabkeena Allah u maciyo miimadu waxa waaye in dadku walaalka isjeclaado qadafta xun la iska ilaalisho waxaan waa taariikh way qurmee waxa la dhaw meel dheer ku dhaca dhagaxna meel dhow dadka iscaayahaya culumay leeyihiin uqaalay leeyihiin nabadoonay leeyihiin waxa waaye meel kasta ku jiraan dad qataraha ku jira haladan qol ku jirta dad waxa jira ilaahay karaamo siiyay oon la ogeyn marka dadka muga afka iskala galaysan waxa waa xaaladdu waxa waa ilaahay wax kugu dhacayo marka waxaan leeyahay dhalinyarada war gacanta iska qabsado aniga waxaan rabaana haddii la helaayo dad wax garado gabdhay wiilal leh oo dadka wacdi geliye qolalka iskugu yimaad dhalinyarada wax u sheega maanta gabartayna ooyeysa ma arki karno marka waxa waaye dadku qaraabanimadu ma ahan in la isla dhasho leh waa tan la isku tixgeliyo la iskuna ilaashado marka Soomaaliyo dhamaan jecelna inay saas noqdaan ay Soomaali isjeclaato maanta meel kastoo tagtay taa lagu leeyahay Soomaali marka waxa waa qabiilku qabyaalada xun maahan qabiilka in la isku aqoonsado ceeb maahan laakiin qabyaalada xun marka waxaan balayaaba abgaal iska kala sheekaya marka TikTok ku arka oo aad darajum fujufo iskaga sheekayhayo wallahi wuligay waa arkay isma lahayn laakiin waa adduunyo ma fahanta marka ceebta asturo meesha ceebta Allah ku asturo ka yeertaa la ceeb kuma asturo wixii dhaco way dhaceen gabdhaas walaalahayna waxaan leenahay walaalkiin caloosha u fura usigana waxa waaye
وبلجيس وديوي أنا كجلين كا أنا كعمامة كسنة ما فهمتين مركب قالوا ومدلود ومدوبي سلطان لقطة كلا قدر مدلود ومدوبي مدلود ومدوبي لقطة كلا سارة لقطة كلا ويا جم قنت يا فيري فرحان ناس عم فرحان كدر ما هي قلبي إلهي معناه ميل isku heshiisiya ilaahay wuxuu yiri meelaha dadka lagu heshiisiyo laba qofood hadaa heshiisisid moogta inaad janno galaysid laba isdagaashan haddaad iyagu soo baxdo ama nin iyo naag ama laba isdagaashan ama laba walaala maxaa dhahdo mudul aray malaaqo waxay riisa subnigaana shirku midoobaye mudulood waa midoobaye aan ku yiri taal lama leedahay midnimada meesha taal magac u yeela muunadan mudulood waa midoobaye ما شاء الله ما شاء الله والله شمده شرفوا يا لامونادان مدولود وميدو يا marka waxa waaye u yeela muunadan mudulood waa midoobaye ma sha Allah runta waa afkaaga Allah noo rubay marka waxa waaye inta dhiman waa dhameystirayna waxyaalo badan iska jira maanta waxa waaye meeshan waxa isku yimid abgaal mudulood oon kala maqnayn malaaqi iyo curadki meesha fadha waxaan rabnaa wixii dhibaato qabana inaan xalinaan diyaar u nahay qofta qof ka tabaysa qoftii qof caloosha wax ugu hayso wayna la hadli karaan inaan
أنا مهورة يعني قبرتان كوسا أنا هذا راضي أنا بل فكر كاي ديو تاسم دي كرانا أبقى اقروش كسعو kusoo gabagabeyna raali waan ahay ma fahanteen يريسي هاي ee ما فرحسنيدو هذا تلكاغ waa ka soo garbax walaalka waa ka garbaxay abgaaro dhan harta abgaaro dhan baa ku imaaday waan cunug faraxsanahay diris ana hadda ma fahantay waan faraxsanahay bas adna walaalka cafi marka masaa waxda inta raalina jifto waxay maaragta qaaran qofka duufan waa ka ahay shal sono ruuxiyaan soo qabanaa sug beelkiina waa joogtaa yaa ruuxiyaan soo لكن سوق لكن سوق ruuxiyaan soo لكن سوق qabanaa ruuxi beelkiina ku xijinayaa waa isbedbedelayaan ruuxi waa idin salaamay boqortooyadeydii beesha muduloo tiraab gaar ahaan haddana waxaan salaamayaa imaankayga sax boqortooyo anigoo ku hadlaayo boqortooyada abgaal cismaan haddana mudulood harte abgaal hoos markii loo dhaadhaco walaashay iqruush raalli ahow haddana raalli ahow mar saddexaad raalli ahow walaashay naga yaraa tahay oo aan jecelnahay shaafi hadalkii oo kuu geystay ka raalli ahow boqol mar ka raalli ahow waxaa kaleetoon raaligelinayaa walaashay rajiino oon dunida u jecelahay iidana oo ina adeertay ah oo dhabarkayga ah oo dhiigayga ah oo mar walbo magaca u taagan aan ka dhalanay oon ka soo jeedno abbaay macaanto raalli ahow duriyadii waa dowladii aan wada nahay ilma adeerayaalow haleesu samro meelo kaleetaa nalaga heestaahe ilaahay ha naga qabto meelaha kaloo nalaga heesto horta faadumay aanka dhexgal adigoo raalli ah faaduma mii maqashaa haye walaal waa ku maqlaa in adeer oday waa ku maqlaa bow ku soco والله صوّع عن فلا كوسع كوسع oday qadka maa ka xun waa la soo wacaa maleeha teleefon faadumay aanka dhexgalo okay haye aniga gabdhaha walaalahay waa gabdho walaalahay ma jecli inay qof dulmiyaan ama la dulmiyo ama public kacad ay ka caytamaan ama qof dhintay ay soo baxsadaan maqal ma jira haa waa lagu maqlaya ku soco oday marka ma jecli qof walba oo gabar abgaala waxaan ka codsaa caawa halkan uu codsanayaa ama wiil ha ahaato inaad iska dhaaftiin qabiilada aad cayaysiin meydadka aad la soo baxaysiin dadnimadiina iyo ku soco oday waa la soo wacaa umalayna teleefona wareerinooyo
واي هدد كلا أصي بنينا يا ما كنت فاطمة وما تنتهي أدير معان أديقنا وما هتسنتهاي إيمان كيجي خير الله كاسيو ما يتوالى ولا شيء هوشان أصاد دوبتي تام هاد علم مرة بتوالى ولا شيء إذن كانوا عوا ما شاء الله وما هتسنتين أنت كقيب قادة وناق طلنا ماذا أنت جعل وحنا لنا جزاك الله خير ميمد وحوا الدنيا ولا لقويا هاي آخر قفل بعمل كير يحسب تري للتجي إن الدنيا لا سكو كاشدو لا سوه اللي لا سكو هذا قرب قفتا الدنيا اللي جوجا ولا لقويا هاي ده وحوا meesha laga haayo wuxuu ka hadlaayo horta waxaan u mahad celinayaa Rajiino walaal qabsoomay oo imaqlay aad tahay awalka hore cabsi waxaan ka qabay waxaan isdhahay xanaaqa ka tanbadiyaa laakiin Rajiinooy maanta laga bilaabo waxaa tahay qof tol ah oo wax maqla oo dadka dhageysta oo dadkiisa ka dambeeya aad tahay aniga imaamadeydii aad tahay mar walbana waa ku wada jiray waana ku wataa weligayna kaama hari doono ilaahay idinkiis ikhruuj habaryare adigana sidoo kale sida aad nooga yeeshay adigana waa kaaga mahad celinaa duco waxaan ahayn oo idiin soo hayhay ma jirto waxaan aad iyo aad walaalkaygan islowgana waxaan leeyahay